madaxweyne hore dalka Masar Maxamed Mursi ayaa ku dhex geeriyooday maxkamad ku taal caasimadda dalkaasi Masar oo ay dacwadi kaga socotay kadib markii la sheegay inuu u geeriyooday wadna xanuun. madaxweyne Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii koobaad ee si xor ah u soo doortaan shacabka reer Masar ayaa talada dalkaasi ku guuleystay sanadkii 2012 kaasi oo 18 bilood oo kaliya oo dalkaasi ka arriminayna kadib ay afgambi talada dalka kaga qaadeen ciidamada militariga dalka Masar. madaxweyne Mursi oo ay sheegeen inuu u dhintay wadna xanuun ku soo booday ayaa muddo 5 daqiiqo ka hor laga hayaa hadal kooban intaan u dhicin oo suuxin kadibna aan gudaha maxkamadda laga qaadin isagoo kooma ku jira isla markaana aan nolol laga gaadhsiin cisbitaalkii lagu waday. sidaas waxaa sheegay oo inta badan warbaahinta caalamiga ay soo xigatay telefishinka qaranka dalkaasi oo ku hadla afka dawladda. madaxweyne Maxamed Mursi ayaa xabsiga ku xidhnaa tan iyo 2013 oo xilliga ay talada waddanka awoodda kula wareegeen ciidamada militariga dalkaasi oo uu madax u yahay General Abdel Fattah al-Sisi. Maxamed Mursi oo ahaa nin ku adag mabda'a islaamnimada ayaa ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ee ururkii Ikhwaanul Muslimiinka laga mamnuucay siyaasadda dalka Masar, kaasi oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii jaaniska siyaasadeed helay inuu dal madax ka noqdo xilligii uu halkiisii ugu sarreysay marayay wixii loo yaqaanay gugii carabta ama kacdoonkii shacab ee gilgilay wadamo badan oo ka mid ah caalamka dunida carabta. Maxamed Mursi ayaa markii xukunka laga tuuray xabsiga lagu riday iyadoo lagu soo oogay inuu galay dambiyo siyaasadeed oo ay ka mid ahaayeen inuu taakulo siyaasadeed u fidiyo ururka Xamaas ee ka dagaalama marinka Gaza, inuu taageero siyaasadeed iyo xiriir cusub la sameeyay dowladda kacaanka Iiraan iyo urur caalami ah oo ay wadamada reer galbeedku iyo cilmaaniyiintu ka arkaan xagjir. haddaba kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha oo awal horeba ka deerinayay xaaladda caafimaad ee madaxweyne Maxamed Mursi ayaa sheegay in aanu jirin daryeel caafimaad oo uu haystay intii uu jeelka ku jiray ee aanu dhiman. sanadkii hore ayay ahayd markii ay koox ka tirsan aqalka odayaasha Ingiriisku booqasho ugu tageen Maxamed Mursi kaasi oo ay sheegeen inay xun tahay xaaladda uu ku sugnaa isla markaana ka deerinayay inuu meel xun la marayo beer xanuun iyo cudurka macaanka oo hayay. madaxweyne Maxamed Mursi ayaa la sheegay inuu lagula kacay tacdiyo fara badan oo bini'aadantinimada ka dhana muddadii 6 sano ahayd oo xabsiga ku jiray, kaasi oo laga ilaaliyay inuu wax xidhiidh ah la sameeyo helkiisa iyo dadka kale ee ka agdhowa. haddaba maalintii Isniintii ahayd ee taariikhdu ku aadanayd 17 bishii 6 ee 2019 warmurtiyeed ay soo saareen madaxa sarsare ururka Ikhwaanul Muslimiinka oo ku tiirsanaa Maxamed Mursina waxa ay dalbadeen in dilka madaxweynahooda lagu sameeyay baaritaanka madax bannaanka ay dowladdu Masar sheegtay inay sameynayso, waxaana intaasi raaciyeen in dilkani uu ahaa fal dambiyeed loo sii qorsheeyay kaasi oo ay dhabarka u saareen inuu ka dambeeyo madaxweynaha haatan ee dalkaasi waa General Abdel Fattah al-Sisi, kaasi oo markii horeba u magacaabay madaxweyne Maxamed Mursi inuu isagoo ka dhigay jarankii ciidamada dalkaasi. inuu dhalay Maxamed Mursi waxa uu warbaahinta u sheegay geeridii aabihii kadib in loo diiday meydkii aabihii kaasi oo khasab ku aastay xukuumadda dalkaasi ka arrimisa. ficilinta ay dunida caalamku ka samaysay dhimashada Maxamed Mursina waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Turkiga oo ugu horreyn ka hadlay dhimashada Mursi, kaasi oo sheegay inay arrintani ahayd khiyaano cad oo lagula kacay madaxweyne si xalaal ah ay shacabkiisu doorteen, waxaanu amray dhammaan masaajidda dalka Turkiga in laga oogo salaada jinaasada ee dhimashada Maxamed Mursi isagoo ku tilmaamay inuu ahaa shahiid.